بس كفطر الطبيعي يعني حناقان لكن الله نحرسته شعور فاروق باشا كذا سوق بجبي الله وقف نادي سجع ضاد الله قبتي اللي في الشنو اللي قصي داعي ما لا يقول سنة بيكد هذا شيخ وعيدي حديث بيسكم الدين وحيري هرت إنك النقلة بعد قول سنة ميو قصبيت الله بعد مس يدا رالي كوا هذا يدا رالي كوا وحيري هذا إذا كذا عطاه نناقة بهيرنا محو كل بيجيبها وعي لكن هذا محل الله بين إذا كنا ربطان الله بين تيرالي كتير حيري قرمها قدروا ميدا لو حيري سؤال بيجو حيري هذيك أباها دور الله بين ما ألاس كاستر ها ولا كان ها ويل كاغانا ها يا ربطا ولي أبيه ولا لكن قبل ما نمرك marka taas waa iska tabiici ha loogu dulqaato gabdhaha dayar xoog yar xanaaqan wuxuu leeyahay toban culimada kamida ardada waxay ku dhiirigeliyaan inay guursadaan laakiin wadaadada ma arag buu yiri nin gabadhiisa arday u guurinaya sidii Saciid ibn Musayyib waxaa laga yaabaa de waxaas ma aragna waxaa laga yaabaa inaadan meesheeda marin annaga aragnay rag badan oo u guuriyay oo gabdhahooda ardadoodii u guuriyay waan aragnay oo Soomaaliya carab intaba leh taasi way jirtaa laakiin ma laga yaabaa adigu inaadan ahayn ardaygii gabadha lagu aamini lahaa inaad noqotaa laga rabo horta adigan waqtiga marka qaarkood dadka kale inaad aragtaa laga yaabaa waxa gabadha lagu siin leeyahay ama ardaygii lagu aamini lahaa aadan noqon wali su'aasha lafteedu meesha waa ku jirtaa ee ardadii Saciid ibn Musayyib oo kala ahayd ma joogaan hadaba wadaadada kaliya haysanine baashaan hoos ugu dhigno oo adkaan laakiin Sheekh Maxamed mid baan soo jeedin lahaa munaasabadan waalidiintii mushkilad baa haysata قبلهنا مشكلات باعثة ويرشي قلتون كان مشكلات باعثة مشكلة دليلين كودادة مجال حل كرب والد كويل كان ما بيقام بقى ويل كان مويل في عمه مسمى كراوي ما كان يقام قبلنا قول كذي مالي ويل في عن كرادي سمتا قام تمنا فوضق ويل والبابا يروقوا هذا قبلنا يوانا جيدي ويل كذبتي سجبر في عمبو الرباية قبليه دون مقالة إنسان كاميرا ومحرنا نيانا ربنا شو حال مرك تقدي سمايسان ديوان قرينا سمايسان ضدك يسكوها بواني يسكو في عن إن أسلط دونا تانا حفيس وفرطان أنا عرفت وياها بونان لاي بل لكن العلماء دي من تاسوه مقاطان من نوع اللي كنت يقول فرصة الشقاق صبح مجاز حفيزك والله فوري ويلي قبض بفيبا لقى قادي حفيزك لو كردي صار لو بخين شقالي صار لو بخين فيلاشا لو سمين قف البنا مغيسي ديتيلز كيسيا waxa uu yahay daadiisiya meesha la galin ninkii gurdoor ah markuu yimaado telefoonada baalka laga reebo bal dadkan arag baa la leeyahay gabadhana shuruudeeda laga qoriyay shuruudiisa ninkan shuruudiisa gabdhaha bidda soo yar dhaweynay isna soo yar dhaweynaysa takaahudi arqeerkeeyo leerana tuqayda xataa shibirkii wala doonaa oo sameey kartaa barnaamijkii Sacuudiga ka sameeyay jiray farax al-uqla iyo kaleetiyo ana waa soo jeedin lahaa wuxuu yiri ka soo su'aashan kale wuxuu yiri meherka ma waxa magacaabaya gabadha aabaha gabadha dhalay mise qaadiga mise gabadha ayaa xaq u leh inay sheegato meherku waa heshiis ka guntama gabadha iyo ninka labada isguursanaya waxa xoolaha dalbanaya iska yeelanayna waa gabadha waxa lagu yeelanayo waa ninka xuquuq xoolaha la isku yeelanayo labadoodiina aynan aqdiya asal ahaan isla ogolaanin ma dhacaanba ma ba saxdaba صادرت الجواد يدي أما عدها وكيلة تمايانة وكيلانة وحيكون في عن تهاي
inay gabadhiiyo ninku ka wada hadlaan oo waxay meher u yeelanaysa isweydiiyaan saas way fiican tahay oo gorgortamaan waxaan waa xaq la isku yeelanayee intaa iyo ma kari kare iga dhin iyo hoos iga dhig iyo marka dambe uun meel fiican ay iskula soo ururiyaan mafcasal laakiin gabadha dalbashada leh ninkuna ogolaanshiyo diidu leh طيب سؤال شكله وحده الشيخ وحان دغيستي عجلدادي حقوق الاولاد oo ku sheegtay inay reeban tahay in magacyada qaarkood lala baxo marka ka waran magacyada Soomaali sareeya caaliya horta waa carabi Soomaali ma aha gamaadiid janagale khaliil iyo wixii lamida magacyada horta anigu sareeya caaliya gamaadiid iyo wax diidaya garan maayo khaliilna culimada muslimiintu way la bixi jireen wax mushkilad la maaha janagala hadii uu saadaalin looga jeedo khaliil buu yiri kaafkaniga wadaagu ku daray hadii khaliil laga wadana dhibaato ma laha waxyadan carabteed arkaysaan in badan oo kamid ah hadii la idin macneeyo kuwa way ka sii qaab darayn هذا صمت قانون قتادة ليرا قتادة معنيه قدح وي علقمة دعر وي مركع عربته مقعيدي باينو كلا دوون وعلقمة يا قتادة باين رفع عظيم ما هنه هدي قدح يو ميجاج يو جماديد يو مشكلة مرها علاض إنه نكان نيران يو نك حرب أي رهدان وي ninka inaga geedi aan niraano ninka muhaajir ay yiraahdaan way muhaajir waa un geedi ama kaynaan ama kunno waa muhaajir marka magacyadii baa inaga luqadaha kala duwan yihiin maahane magacu asalahan wuxuu ku xaraam noqdaa dhowr arrimood in adoon looga dhigo cid aan Allah ahayn abdi hebel la yiraahdo oo abdi intii loo bixiyo loo tiiriyo cid aan Allah ahayn laba ogola waxa soo dhan in la gaarsiiyo magac taskiyeynaya oo qofkani qof Ilaahay agtiisa ku khayr badan inuu yahay oo nabigu magacyada uu bedeli jiray barra gabdhihi la dhihi jiray Zeynabu kuwa uu bedelay wuxuu leeyahay inna tuzakki nafsaha nafteeda taskiyeynaysa waxa kale oo banaaneen magacyada tilmaamaya akhlaaq xumada kuwa akhlaaq xumada tilmaamaya waa qayb badan kuwa magacyada jinsiga way in loo bixiyo iyo xubnaha taranka qof magac xubnaha taranka in loo dhigay lama ogola waxa kale oo loo ogoleen magacyada jaraa'imka iyo dambiga tuug in loo bixiyo koorinka tuug loo bixiyo tuug iyo zani inaga dawladaba la baxay magacyada qaarkood maamul goboleedyada dhan baa magacyada qaarkood la baxayo غرايب كميدا ويل يرنا لب دشاد لب بخيس زاني ولو يالو شري wuxuu galiyahay maaha qayb kale waxa kamid ah khalaaf xumada magacyo gaalo John Michael iyo Joseph iyo David iyo in magacyadaas oo kale aad u bixiso waa laga helo ogaada magacyo waxa jira moodaysan magacyo gaalo ahayn sida dumarka Susan oo kale Susan waa magac Carabi ah waana nooc geedaha dhirta baxday u baxay carafta kamida asalkiisi marka dunida muslimka la qaatay muslimiinta baagi dambe way iskaga tageen carabtii kristanka ahayd baa ku hartay magacyadaas kadibna galbeedka iyo waxaas uga soo baxay Susan waa eray Carabi ah oo nabaad tilmaamaya marka magacyadu dumarka oo kale ta magacyo shahwa kicinaya naasakuusi magacyo lamida loo bixiyo naasakuusi de Carabi markii la nahaad way gabdha carab oo nahaad leeyahay arkaysan nahaad hadii la yiraahdo naaskuus way marka magacyadaas oo kale lama ogola marka wuxuu kale sii wada wuxuu yiri hadii soo qof jooga wadan gaarad oo ku kulafihiisa u cabsado magaciisi Mustafa ahaa ma u bedeli karaa magac Soomaaliyeed adoon cabsan ba magacaaga shakhsiga
markasta waad bedeli kartaa adoo magacaaga shakhsiga aabbaha iyo awgaan la ogolayna magaca shakhsiga waad bedeli kartaa sida aad ku sheegtay muxaadaradaada siigada shareecada islaamka maxay ka qabtaa siigaysiga shahwadoo gacanta la isaga keeno waxay diinta ka qabtaa way siigaysigu waa shahwadoo gacanta la isaga keeno waa kutubta fuqahadana jalda camiiray u yaqaanaan fajrida camiirata waa ka yidhahdaan marka jalda camiira diinta maxay ka qabtaa hadday tahay mamar mise mal mid shaki kuma jiro akhafu min azina horta zina wuu ka saalan yahay dembi iyo wax kastaba zina waa kaga saalan yahay taa khilaaf kama taagna culimmadu waxay isku hayaan asal ahaan ma qismu lmubaaxaat baa mise qismu lmaxduuraat wey khilaafkana waxaa sabab u ah qowluhu tacaala والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى ننكر شادية وراء ذلك لبضع وحانهين وحاسكي يضون إليها يانهين فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك way culimadu waxay tafsiirkeeda isku hayaan sababta khilaafka ma waxaa laga hadlayay furuuj ee aayaddu waxay ka hadlaysaa faman ibtagaa shay-an min alfuruuji waraa'a daalika waraa'a daalikada la sheegaya waa furuuj bay aayaddu ka hadlaysaa mise faman ibtagaa waraa'a daalika oo qadaa'u shahwa oo dhan ah oon labadaa ahayn bay ka hadlaysaa bimacnaa shay baa la qadarayaa waana wax usuuliyiintu almuqtadaa ay u yaqaanaan wey waxbaa qadaran faman ibtaqaa qofkii raadiya waraa'a daalika waa xaaskaagii iyo addoontii aad lahayd waxa uu raadinaya muxuu yahay haddaan nidhaana aan qadarno ma furuuj baa laga hadlayay baan dhahaynaayoo farji baan qadaraynaa mise qadaa'u shahwa laga hadlayay baan leenahay oo qadaa'u shahwaan qadaraynaa farji haddii la qadarana waa khaas kooban oo masaladii siigaysigu taxriimka soo geli mayso haddii qadaa'u shahwo la qadarana waa ka caamsan yahay oo siigaysigii waa soo gelayaa halkaa way horta sababulkhilaafka in taqdiirka la ysu khilaafaa sabab kale leh sababka uu leeyahay waxaan aan sheegay ee usuuliyiintu dalabatulcilmigan ula danleeya hadalkan muqtadaha ay u yaqaanaan muqtaduhu waa hadal qadaran oo qarso xadfan oo la qadarayo siyaaqa hadalka macnaha tamaamkiisana uusan ka maarmin waxay usuuliyiintu isku haystaan haddii muqtado la qadarayo ereyga la qadarayaay ma cumuum buu noqonayaa mise khusuus buu noqonayaa ma lafdiga ugu caamsanee la heli karaa la qadarayaa mise lafdiga u khaasan baa la qadarayaa waa masale aslan la isku haysto iyaduna waxay farac ka sii tahay masalo kale ay kula geli marka dambe oo taalibku markuu baarayo qaacidada ay yidhahdaan ahlilcibratu biawaa'ili lasmaa'i am biawaakhiriha ma waxa ugu yaree magacu ku dhacaa takliifta sharcigu tahay mise waxa ugu badan ee uu ku dhaco masaa'il badan baa galoo tahaarada masxi ra'si maxaa kaafinaya iyo masca alkhufeyn maxaa ku filan iyo dalabulmaa'i mutayamimkii qadarkeebaa ku filan iyo qadarka ugu yarbaa maka ugu badanba masaa'ilka khilaafkoodoo dhan baa qawaacidan saamaynaya qolo waxay leeyihiin waxa ugu caamsan baa la qadari sababtoo ah muqtado marka la qadarayo cumuum baa fiican wuxuuna ku fiican yahay axkaamta shariicadu si tacmiimaamkeeda loo badiyo waxa ugu badanay dawaahirta nusuusta soo geli karana loo gaadhsiiyo maadaama jus-iyaadka iyo axaadiistii badan yihiin kanaan raacaynaa saa darteed faman ibtaqaa shay-an min qadaa'i shahwati wey qolo waxay leeyiin may cumuum khaas baa la qadaraa sababtoo asalku waa baraa'a waxaan la qadaraya axkaamtu ku xihan tahay kan ugu yar waa la hubaa wixii ka badanna waa mashkuukun fiihi wax mashkuug ah asalkii yaqiinta iyo ibaaxada loo dumin maayo faman ibtaqaa shay-an min alfuruuji waraa'a daalika aan dhahaynaa
halkaa waxaa ka dhalatay aayaddan horta istimnuhu taxriimkiisu wuu soo galay ninka kule cumuum buu qadaray ninka kule ma soo gelinna khusuus buu qadaray murankuna waa muran ijtihaadi ee nas maaha laakiin ragga hadlaya baa nina aada u adadkaynoo sidii nas sariixa ka dhigi nina hadalka fududayn waxaan uga jeedaa maadaama su-aashan ay badan tahay wadaadada aaraadooduna marar badan aada u kala duwanaato ragga mashaayikha iyo talabatulcilmi wixii warka igu gaaro inay ma'khadka marka hore ikhtiyaarkaaga inaad xadido weeye masaa'ilka awaa'il ilasmaa iyo awaakhiriha maxaa raajixa mid inaad doorato weeye bidaliilihi muqtadaha ma cumuum baa mise khusuus baa la qadaraana inaad meel kusoo xirta weeye markaa kadib baa aayaddan dooda iyo muranka laysu iman aayaddan keliyana ma ogaada xadiidkii laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaaata masaajid nafsuhu mushkiladan oo kaleetaa ka jirta laa tushadu rixaalu ilaa masjidin ilaa ilaa hadihi alaaati baan dhahaynaa miyaa saa haddaan nidhaano on shaygii khaaskaa qadaro masaajid baa laga hadlaya nidhaano xadiidku daliilu ma aha fi nahyi can shadi rixaali ila almaqaabiri xadiidka ma soo gelayaan haddaan nidhaano ilaa cibaadatin tacabud maka fii makaanin ilaa tacabudin fii makaanin ilaa hadihi alaaana qubuurtii waa soo gelinaynaa nisaaca xadiidkani shadu rixaali ila almaqaabiri daliil mau yahayna waa isla nafsu lmas'ala usoo noqonaya marka waxaan uga jeedaa ninkii inuu wax taxriiriya raba masaa'ilka aha soo qarira calaa kulli xaal masaladu saa darteed bay masale khilaafiya u noqotay khilaaf muctabaraana ka jira ma taxriim bay geli mise ma gelaysa aayaddan ma soo gelaysa mise ma soo gelaysa wey waxaan intaa kadib talabada u diray kitaab waxaa aada u faahfaahiyey ninka la yihahdo maxamed ibn cali shawkani raximah allahu tacala kitaabkiisa buluuqu lmunaa fii xukmi listimna kitaab dhan buu ka qoray aqwaasha culammada iyo aathaarta iyo min cahdi saxaabaana la isku haystaa saa darteed maadaama khilaafkiisa ijtihaadi yahay laa shaka annahu akhafu min azina hadday daruuro kugu timaado aada bahashii aada uga baqdo qowlka marjuuxa ah masaa'ilkaas oo kaleetaa lagu intifaacaa wallahu aclam su-aasha xigta su-aalihii ugu dheerdheeraaday aan soo gaabiyo wuxuu uhi waxaan rabaa inaad ii sheegto waxaan la joogaa abtigay wuxuuna cabbaa qamri ma iskaga tagaa horta abtiga iyo dadka kaleba inta cusaada muslimiinta horta allaha soo hanuuniyo ilaahina subxaana wa tacaala xaqa ha garansiiyo dadku qofu maalin buu xaqa gartaayo in badan oo naga mida waxay iska ahayeen kadalika kuntum min qablu famana allahu calaykum iyagana allah soo hanuuniyo adiga inta aadan ka tegin laba arrimood samee ilaahayna u bari awqaadda ijaabada ilaahay waxaan inuu ka qabto ilaahay toobada iyo hanuunka waafajiyo adiga lafahaaga ama cidda kaleed u adeegsan kartana ba horta wacdi iyo waano ku day taa hadday wax tari weydo laba mid baad noqon baasha hijrada iyo ka tagitaankii mashruucun ligayrihi weeye hadba masaalixda iyo mafaasideeda ay ku xiran tahay inaad uga baqaysaba naftaadii inuu ku galaafto marka dambe ku geliyo haddaad ka baqaysana isaga carab haddaad joogitaankaaga aad sii joogto maalinun aad ku wada oo ku yar wadaayo wax kaa maqlaa aad ka raja qabtana waxaa raajixa inaad la sii joogto haddaadan ka baqayn inuu ku saameeyo inuu wax kaa qaatana aadan raje ka qabinna ida stawa طarafaani fa min almubaaxi ka tegitaanka iyo joogitaankaba laasiyama haddii aad u baahan tahayoo waxaan la joogayoo wax ka cunaaye meel kalood aadan helaynin gurigan aadan xaaraan ka cunaynin waa iska joogi kartaa planinku ama ilmaha la kala fogeeyo dadka dhalmada ilmaha ay kala fogeeyaan horta masaladani lafteedu masale ay waxyaabo badan hadheeyaan weeye maadaama ay soo noqnoqotay jawaanibteedaan waxoogay bidhaaminayaan masaladan horta usuul baa xukumaysa asalka koobaadi ilma in la dhalo ma min furuudi alacyaan baa mise waa min furuudi alkifaayaat dadka mawaajib bay ku tahay qof waliba ilma inuu dhalo oo dhali kara asalku waa maya waa min furuudi alkifaayaati
sida zawaajka iyo guurka laftiisuba waa furuudul kifaayada ummadda dad guursada waa in laga helaa laakiin qof kastaba inuu guursado sida salaadii furuudul acyaankii maaha guurku ilmaha dhalitaankiisuna furuudul acyaan maaha waa furuudul kifaayaat ummadda qayb guursata oo wax dhasha oo jiritaankeedii in laga helo way laakiin qof kasta ilmaha dhala waajib cayniya maaha masalada horta xukunka saamayn bay ku leedahay masalada labaad ilmaha marka la kala fogeynayo waa ficil dadku ay samaynayaan afcaashuna asbaab bay yeelataa sabab baa ku xambaaraya qofkan hadba xukunku wuxuu qaadanayaa sababta hadday sababtu tahay sidii carruurta waagii hore loo diri jiray loo aasi jiray risiq rakacarar iyo carruur badan ma biiri kartid carruurtan badanna kharashkooda kama bixi kartid ilmaha iska yaree masaladu hadday tahay ma bannaana sababtaan bannaanaynna waxaa weeye caqiida xumay tilmaamaysaa oo wixii gaaladii hore ilmaha ay u diri jireen khashyata imlaaqin faqriya gaajo ka cabsigeed ilmaha loo diri jiray qur-aanku ku dhaleeceeyey oo ilaahay arsaaqda uu qoray iyo qawaaniintii sharcigu uu ogolaaday ka baxsan wey haddii ay arrintu tahay sababtaa waxaan ahayn oo ah carruurtiina waa isu dhodhowaadeen hooyadiina wuu dhibay uurkii isa saarka ahaa waa matlab la ogolyahay sharcigu in la yar kala durjiyo waayo hooyadu waa wax la hubo wey ilmuhuna waa midho geed saaran wey hooyada nafteeda ilmihii caloosha ku jiray baaba hadday khatar gasho lasoo tuuri karaa iyada hadday khatar rasmiga gasho in la yidhaahdo ilmo yuusan dhalanin oo family planning ha la sameeyo 2 sano ilmuhu ha kala weynaadaan si hooyadu ilmahan markay dhashay kadib ay u soo kabato ay u soo xoogaysato dhiigeedii iyo taqwadeedii iyo xooggeedii quwadeedii u soo noqotay wax xarajiya dhib ama laha hadday hooyada xanuunsan tahay oo lagu soo qalayba hooyinka qaar baa lagu qalay talooyin dhakhaatiirtu waxay bixiyaan in 2 sano inaynan uur qaadin oo inta nabarkii gudaha si fiican uga bogsanaya haddii kale uu qarxi karaa culayska uurkee soo fulaysa waan aad u bogsanin waa dilaaci karaa nolosheedana khatar waa gelin karaa dhakhtar lagu aaminsan yahay hadduu yidhaahdo waa la samayn karaa family planning-kaasi kani ama ha la isticmaalo inta ugu badanaan arkay hadda 3 nooc baa la isticmaalaa ragga dhakhaatiirta ee laga yaabo inay qaar joogaan baa iga xogaalsan qayb waxaa la isticmaalaa waxyaabo meelahan la geliyo ama wax la geliyo ama irbad lagu dhuftaa oo dawo ahaan ama kiniin la cunaa qayb dawooyin baa la isticmaalaa qaybna wax la yiraahdaa faraanti iyo wax la mid ah la isticmaalaa yaqaanaan macna minka la xiraa waxa minka lagu xiray faraanti iyo waxsaas yiraahdaan minkii ay shahwadu geli lahayd baa la xirayaa taa mushkilad bay yeelatay marar buu dusheeda ku abuurmaa minka banaankiisa waana khatar haddii ku abuurmo mid saddexaadna waa la sameeyaayo diicinjir baa la isticmaalaa condoms bay isticmaalaan masaa'ilka calaa kulli xaal ninkii reerkiisii inuu la noolaado inay uur qaadana uu ka warwareegana xilligii nabiga dhacay sallallahu alayhi wasallam kaanuu yacziluuna xadiid alcazli soo taqaana haweenku u tagayaa xilligii biyaha marka la gaaro banaan ku daadinaya nabiguna nahyi sariixa kama reebin jaabir iyo abu saciid nin labaadan u maleynayana waxay dhahan saxiix sida ku qoran kunna naczilu wa rasuulullaahi bayna adhurina wal qur'aanu yanzilu nabigu nala joogo quraanku dagayaan sameyn jiray banaanka shahwada ku daadin jiray walaw kaana mimma yunha anhu lanahana anhu alquran haday xaraan tahayna waa laga reebi lahaa raggaas riwaayadka qaarkood waxay cadeeyeen haween aan ka baqaynay uur inay qaadaan marka islaantii uu xoogay la joogaya markay xilligii biyaha shahwadu joogto banaan ku daadinaya nabiguna wuxuu yiri waxba ha isku dhibina naf ilaahay haduu damacno abuuro oo una abuurni si wax kaaga fakan si wax kaaga tifqay si cad nabigu uga reebin sallallahu alayhi wasallam saadartan inay uur qaaday ka baqayeen biyihina banaanka ay ku daadinayeen hadduu caag cincir isagoo inay uur qaada ka baqaya uu ku shubaay in caag cincirka wax tahriim oo gaar ah uu keeni mala caag cincirka shaqo qanasoo kima qaxo xeelan maahida barkooda ayaa ardayda in shay u diraan in wax la soo qoro
waxaa la yidhaha waxaa ka soo sheekaysaa muslim iyo kaafir ilaa kaafirna ha dhihin gaalna ha dhihin labadaa insha ka soo qor ilaa qoraalkaada kaafir waa noocan gaal waa noocan inaadan dhihin markaa xukunkeeda maxay noqon sidee loo qori wey alxamdulilah labo ma ardayga hadduu xeelad iga rabo ilaan waa arday la imtixaanayo isagoo xeelada uma furre xeelad hadduu iga rabo muslim iyo hayru muslim dheh hayru muslim tusaawi gaal kaafir saas maa non muslim waxay equal u tahay kaafir marka haddii lagu yidhi gaal way gaal ha dhihin hayru muslim dheh haddii mar haddaad imtixaanan tahay imtixaankiina waraaqdii lagaa sugayo haddaad soo qortana aad ku dhici taaba iska gasho midna waxaan dhihi lahaa dadka macaahidda ama barnaamijta dadka u diraya eraygani waa ismi qur-aanka iyo diinta oo dhan ku soo arooray diintii axkaamtii ilaahay asmaada uu siiyey inaad ka carcarartana waxba kuu tari mayso sideedabana wixii diimaha ah erayga siduu yahay baa loogu dhaqmaa caqli iyo qaanuun iyo sharci midna kuu diidaya ma laha eedii diinta waxaad uga cararta ma yaallo waxaa dhici karta hay-adahan gaalada ah inay waxoogay biil iyo fan ku siiyaanoo iyagu ay kuu diidan yihiin ama warbaahinta caalamka qaar ka mido anugu kaafir dhihi maayo wadaaddo ka yidhaahdeen laakiin almuslim wa hayru lmuslimiin aan dhihi inaad ku ta'aurtayna waa dhici karaa haddii uu eraygan laga fiican yahay ilaahay qur-aanka kuma badiyeen erayga ugu habboon ee la yidhaahdo waa erayga ilaahay u doortay qur-aankana ku badiyey waxna midna waan idiin sheegi waan idinku gabagabayn nimankaa gaalada aad arkaysaan halka guntooda anugu waan tegey intooda badan bariga fogna waa tego ilaa australia new zealand ah yurubna imaa waddan aanan marin waa yaryah hal wax baan idiin sheegi wax ka fiican waxa dhabtee diintaada inaad ku adkaysato tiraada waa diinteeda waana sax wax ka fiican lama arko diintii waa lagula yaqaanaa kan haddaad si u yar gedisato kaad gedisatayna waa lagula garan dhuumaal dhabar ku muuqda ma fiicna waxaa jooga rag brofesorro oo 80 jira ah oo 60 sano culuumu shariica alislaamiya akhrisanayo aqrinaya takhasus fiqhigiisu yahay nin takhasuskiisu xadiid yahay nin takhasuskiisu caqiida yahay nin takhasuskiisu tafsiir yahay baa jooga oo inta kutub ee tafaasiir iyo mufasiriin korka kaaga wada akhri muslimna ma ogow waa gaal nin reer bukhaari iyo muslim iyo asaaniidoodii iyo cilalkoodii iyo shuruuxdoodii iyo suuxu ka didin adyaabi laakiin aan muslim ahayn baa jooga kaa xaggeed kaga baxsan haddii erey baan la daba wareegaya ni aad ka daba wareegto waxaa asal ah qanaaca taama diinta ku qab diintiinnu waxaasay qabtaa haa maxay saa u tiri idiyadaa saxan say ku saxan tahay warnimadaa wax si kaa yahay masalada laga doodaya ha noqoto marka ani si wax igama aha iyo wuu kaa yahay laakiin ha ka doodin diintiinnu saa maxay u tiri miyay saxan tahay miyay saxan tahaydaa inaad ka doontaan waa khalad waxaa saxa inaad ka doontaan way saxan tahaye adaa wax si kaa yahay oo caqligaagu fooraraa iyo see u fooraraa halkaasa muranku waxay noqon marka caqligaygu ma foorara iyo caqligaagu u fooraraa waagi hore muslimiintu difaac bay ku jireen laakiin khayr allaha siiye qaladaad ha lahaadaan laakiin wax badan kitaabada dacwada u qabtay baa jira abulcali almawduudi iyo abulxasan alnadawi iyo sayid qutbi iyo marxalad waxay ka guureen ay difaac ku jireen weerar bay isu bedeleen waxay dhaheen wareerdheh islaamku ima maalin walba shubha la keenayo difaacaynaa intaay naga daysaan mabaadiidan reer galbeedka iyo maarkiskii aan weerarno ceebahooda aan bannaanka soo dhigno difaaca galaan iyagu markaas waxay dhaheen maarkisyada ceebaheedii waa kan waa hanti wadaagga hanti goosadka reer galbeedka waa ka ceebihiis waa ka dhaqankiinni waa ka diintiinni waxaan ka jawaaba nimankii jawaaba lahaa baa iyagii jawaab galay kan may jawaab ma hayno oo waxaad keenteen fiiriya weerarkii wuxuu isu bedelay difaac inay noqdaan adiga weligaa ninka difaacaya ninka weerarka ninka difaaca jilicsan oo marba la durkiyaa markuu ninku wax kuu keeno diintiinu naaga badan bay banaysay weli sax weeyadhe saasaa dani ku jirtaa eniyo hadduu nin raga yahay adaa raganimadaada wax ku jiraa baan u malayna iskuma dayi kartid miyaa dheh maye saa ugama jeedo warniyo haddaadan waxaynin
wadan adigu ka bixi karin oo raganimadaadi hoos u dhacday ragga raganimadoodu tahay daa waxbaa kuu dhiman may aniga saa kama wado xuquuqdii haweenka meel looga dhacaya adiga haweenku markay doodaan hal la arkay adu haween baa tahay halkaas meel ha marto kadib wuxuu ku yiri diintiinu adoonsi bay banaysay waxaa tirada waa sax ninkii gaal ah la soo qabtay jihaad lagu soo qabtay la adoonsado waa sida ugu fiican maxaa dhiba may binaadan baa la adoonsanaya ha ada wax si ka yahay in la adoonsado way fiican tahay in la adoonsado fiican adaan fahmayni waa ku doodi anagoo gaalada la joogna baan dhihi jirnay sidaas sax ah oo say ku saxan tahay dadka Ilaahay baa abuurtay adoomo ka dhigtay yaabudu yiri waa yahay bay dhahan min baa yiri ma yaani macaabuday bannaankaaga iska joog baa yiri ma yeeli maayo dadka Ilaahay caabudi maayaan qori soo qaatay aanu caabudi maayo Ilaahay dadka inay caabudaan ogolaan maayo dhimashaan ka xigaa buu yiri ninkii baa la qabtay kuwii adoonnimada Ilaahay ogolaa adoon in looga dhigo ku fiican tahay khaainka najiska way ku fiican tahay oo lagu ciqaabo idinka dawladuhu markii la istagaala dawladda ka adkaatada qabataan dhul beeraha ku falataan anaga beeraha ku falano waxa loo diidayo oo la doonsigii oo magac kale u sameeyay maxaabiista marka la xirto waa lagu shaqaystaa oo waxay dhaqaan oo waxay sameeyaan Sooma isaasoo kale taway dagaal baan ku soo qabanay Ilaahayna caabudno noo diidan yahay macna waxaan uga jeedaa yaqiin thaabit ayeen diintu waxay tirisay u tiri magacyadeeda iyo ahkaamteeda waa sax cidii wax ka keenta iyada maskaxdeeda wax sikaya isaga wax garanaynin isaga aqli dhiman isaga dan kale leh ujeedo kale uu leeyahay mardaba rabtaa iyo qurun baad wadaa marka weerar ku bilowdo meenu isdifaacu gali halka hore uu ka digi marka weerarku ku wad isaga dib u gurasho soo guranayo gabi ka dhacdo rabo gidaar madaxa ku dhirto halkaas ku diinay subhanaka allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk